magaalada Hargeysa tababar looga furay dadka ajaanibka ee ku dhaqan Somaliland. Tababarkan oo wajigiisii lixaad maanta la furay waxa dadka ajaanibka lagu barayaa dhaqanka, anshaxa, dabeecadda, deegaanka, maamulka iyo haykalka dawladda Somaliland iyo waliba taariikhda Somaliland. Waxaana uu kor u qaadayaa fahanka ajaanibku ay Somaliland ka haystaan iyo waliba isdhexgalka ajaanibka ku dhaqan Somaliland iyo bulshada Somaliland. Tababarkan oo ay bixinayso xarunta tala bixinta cilmi baarista iyo tababarada ee loo yaqaan Ecotra waa soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo waliba wasaaradaha qorsheynta qaranka iyo arrimaha dibadda. Tababarkan oo ay ka faa'iideysanayaan ajaanibka ku nool Somaliland ee ka shaqeeya hay'adaha iyo shirkadaha iyo kuwa hawlaha kale ee shaqo u jooga waxaa ka soo qayb galay oo hadal ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland mudane Maxamed Muuse Xaaji Cabdi Galayd. macaamilada dadka ajnabiga ah ayuu horta ayaa aad loogu barayaa casharka arkayso lagu siinayaa shaqaalaha ajnabiga oo inka labaatiriya qof gaariga ay ka soo qayb galay saddexdii bilood mar baa la qabtaa wixii kolbay maadada ku soo kordha taas ay la socdaan macaamilka iyo habdhaqanka dadka reer Soomaaliya si weeyii iyo taariikhdii sooyaalka ahayd ilaa iyo waqtigii 1854 ayuu ka soo sheekeeyay macalinku saawaarka Senda taariikhdaas Soomaaliland si ay wixii ay soo martay iyo markay gobolada qaatay iyo isku darsigii ay isku darsadeen Soomaaliya xilliga ay isku darsadeen iyo markii dambe magaraysa civil war-hadii dagaalada dhaceen ilaa dawladihii iska soo beddelay ilaa markii ugu dambeysay Soomaaliland ay ka go'day Soomaaliya ay ku soo gaadhay dimuqraadiyadii halka ay doorashooyinka ay ku soo gaadhay systemkii oo dhan ka warramaysa dhaqaalaha reer Soomaaliland ay ka warramaysa dhaqanka reer Soomaaliland ay ka warramaysa xagga beeraha xagga xoolaha xag kasta oo ka warramaysa marka waxa soo dhan ayaa la siinayaa dadka ajnabiga ah si ay ula socdaan dalka ay joogaan bal wuxuu yahay Soomaaliland waxay tahay. tababarka waxa bixinayay Dr. Aadan Ismaaciil Xasan oo ah gudoomiyaha xarunta tala bixinta cilmi baarista iyo tababarada ee loo yaqaan Ecotra. waxaan ugu talagalay tababarkan oo magaciisa la yiraahdo BIBE ama u taagan briefing and induction program for expatriates dadka ajnabiga ee wadanka ka shaqeynaya si ay u ogaadaan dhaqanka diinta maxaan ku raadayay taariikhda juqraafiga Somaliland ujeedaduna ay tahay inay bixiyaan adeeg wanaagsan macaamilka dadka la macaamilayaan uu noqdo mid haboon oo aanay wax qaladada xagga diinta iyo dhaqanka iyo anshaxa midna aanay ka gelin taasoo ama naftooda khatar gelin karta ama yani dhaqanka dadka la dhaqmayaan na aan waxyeelo u geysan karin runtii hay'ado badan baa ka socdaan dadka maanta tababarkaanu siinaynay waana midaanu ilaa 6 wiiga ma labadii bilood mar baanu qabanaa aadna way u soo dhaweeyaan waana u jeclaystaan maxaan ku raahdaa waana markii lixaad ee imkaanu siino waanaan wadaynaa insha Allah saddexda wasaaradood ayaa wasaaradda hormoodka ka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta ayaa iyaguna hawshan qayb kamida ka ah oo saddexda wasaarood baa iska kaashaday hay'adda Ecotra la yiraahdo way hirgelinaysay hawshan maxaan ku raahdaa waana mid runtii aanu doonayno si xoojino ajnabiga wadanka imanayana waxaanu ku boorigelinaynaa dawladda iyo cid ay u shaqeynayaan iyo hay'adahaba inay u soo diraan si ay dadku u qayb qaataan tababarkan oo ay ka faa'iideystaan. tababarkan oo maanta galay wajigiisii lixaad ayaa la qabtaa 6 toddobaad mar waxaana uu ka qayb qaadanaya isfahansiinta Somaliland iyo ajaanibka ku dhaxnool. Cabdiqani Xasan Cilmi Cabdiqani Dawlad Kalsan TV Hargeysa.